السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا قدرت يوتيوب كده ونسنو درس لعبدي كسر دوا ده يوتيوب channel كي كورسب تاي فلا ده يوتيوب channel كي كورسب تاي سبسكرايب صار فيديو ولا لايك صار هذه بوما سنتاي أوكي ما تفيديو إنه هي فيديو إنه هي إنه حوين كبدي أي كبد كلا سيسنين كذا معناها كبدي كلا صاحب الله هاي أي صاحب ده كتير كان نين كذا guursady ga oo god ina guursatide waa gabadhi dharig ma waxa dadka qaar ku madana dirigsan ama dirigsi waa wax ka ormanaya okay tan video u dhaadicin intaanan degin insalaaga qaadan ma fiistaan dadka badankooda imka youtuber noqdeen ana wali beem hadii lees video la yiraahdo youtuberada Soomaalida ugu badan halkay joogtaa garanaysaa halka joogto waxay joogaan Muqdisho youtuberada ugu badan waxay joogaan Soomaaliya waxaan xasuustaa waa youtuberada la tirin karayo loo jiray hebel laakiin imika lama tirin karayo weligaa qof aadan islaahayn youtuber buu noqonayaa ama YouTube buu sameysanayaa YouTube le ala soo taaro markaa soo dhawaada kaale halkan هيدا مركا ما شاء الله ده هرمبة جاي نسمع أنا ده مدام يوتيوب كي لقرنا يو ويدود كي يوتيوب كداوريان أو سبسكرايب لساريو كما حال كليه دود كوحصور ده جاي وحنا كهذا ده عايز يقسم يستنوا ويجان ومعنا لايك وساري كرا سبسكرايب وساري كرا لايك إيه سبسكرايب وحرم ملنا وحساري كرتان مكان أكون هذا بس أنا ما هذا هذه كلام وجديد ده هو قرنا يا مي جيميل كذا صور كذا يحبوا قرنا يا قرنا مركا يوم كوي صور بتر أنا وان درام يسلولي ولا صور كذا يوتيوب كا اوكي مين في فيديو قيم كانوا تغنوا وقبدي دوات حلا ذنك قبدي. Assalamu alaikum, my name's Sister Sarah. I'm no longer on social media and I haven't been for the past 3 days. So any messages, any videos, any DMs, texts, voice notes, any comments that you get claiming to be from me aren't me. Any accounts that I made aren't from me. I haven't been on social media for the past 3 days. And I will never ever be on social media again. I have access to any electronic devices and I'm not in contact with the couple. This is my last final statement on the situation. I've always wanted to be an amazing Rakia. My dream was to be the best female Rakia out there. I really genuinely wanted to help people. I've not known the couple no longer, just little over a year now. And I've come to find myself in a really toxic situation now, where it's affected my mental, my physical health, and most importantly, my iman and connection with Allah. And I want out forever now, forever, I want out. But before I go, I know there's a lot that I need to address. I want to begin by begging the Muslim Ummah, for anybody who I've hurt intentionally, unintentionally, whether it was to your face or behind a screen, whether it was in person, anybody who's been misguided by my posts that I've put online, I beg for your forgiveness and I beg Allah forgives me. I apologize to my family. Social media has allowed us public figures to live two completely separate lives. What you see on the screen is not what you always get, and you shouldn't believe everything you see. You don't know what happens behind closed doors. You have no idea. For example, nobody knows that for the past year or so I've been suffering from depression. Nobody knows that at points my iman was so low that it led me to not wanting to live anymore. Nobody knows that me and Hasna have been married a while. You don't know these things because these are the things we don't want you to know. These are the things we don't post about or write a caption about.
I've been pulled out of this situation now. And Hasna is no longer a part of my life. And it never will be. I intend to build bridges with all the people I've hurt, all the pain I've caused. I intend to better my mental health now, my physical well-being, but most importantly, my connection with Allah. We need to fix that. I pray you guys can forgive me one day, and I pray Allah forgives me. I ask you one thing, just to keep me in your du'as. May Allah forgive us all. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum. Okay, dadkaan af Englishka fahmayno waxaan idin macneeyo waxay gabadhu tiri. Xag waxa ku qoran degdeg. Sister Sara waa la soo furay. Minyarada degdeg badan way ooyeysaa. Oohinta ayaa ka socota. Waxay tiri Abdallah iyo ninkeeda Xasanaad waan ka dhaxbaxay. Xasanaad dambe la igama maqli doono. Wiligii oo dambe noloshayda qayb kama ahaan doono. Isoo duceeya. Social media iyo aanbaxa dibkiisu weyn yahay. taas baan ma aan markaa dad ku leeyahay in dadka laga dhax karto ma fiicno wax kale moodiyaan. Anu wallahi been ma sheegayo in dadka laga dhax karto ma fiicno. Anu kuma soo jeedina aan noqdo waxa doonto noo qorta ikhtiyaarkaas ka laakiin anu waxaan ku leeyahay in dadka laga dhax karto ma fiicno. nolosha dhabta ah ee uu qofku ku nool yahay iyo tan uu Facebook soo dhigayo waa kala laba. sanadkan dhan aniga depression iyo maskax faluuq ma garanayo baa i hayay wax war iga hayo male iimaankaygu wiiga nusqaamay dembi badan baan lagu hadla galay hooyo iyo aabbo iga raali ahaada familygayga iga raali ahaada dhammaan muslimiinta isoo duceeya ilaahay ha barakeeyo. anagu ku soo ducaynaa wada qaali degdeg ma fiicno waxyaabahaas oo kale ayuu degdeg u sababaa ma garanaysaa. marka ilaahay dhibaatada gabadhan ay sheeganaysaa ka dul qaado. ilaahay qofkii dhibaato qabana ha ka dul qaado qofku doonaba ha ahaade. qofkii xanuunsanay ilaahay xanuunka ha ka dul qaado. dadka qaarkood baa jira oo social media ku dhex faraxsan oo qosla oo moodin bayn dhibaato haysato laakiin se caadi ahaan qofka noloshiisa caadiga laga yaabaa inuu wax kala haystaba laga yaabaa inuu adduunka joogin ba isagu laga yaabaa inuu xanuunsanayaba. marka horta been maaha ta social media malaha ka hadla nolosha social media iyo nolosha caadigu isku mid maaha. dadka qaarkood baa aaminsan social media waxay ku arkaan inuu run yahay. wax walba social media ku aragto run maaha. qof walba social media ka dhex qoslaya ma faraxsano. qof walba isku daya inuu dad entertain gareeyo isagu laga yaabaa inuu wax entertain gareeyo haysan. macnaha hayskoolun alla ma aragtaa anu single baanay labadaas lamaane social media Instagram-ka soo dhigay saas ku arag jeexjeesa. nolosha u ficneed ku noolyihiin me bro like ma ogid aduu maxaad garanaysaa inay qadiyeen maanta maxaad garanaysaa inay isku faraxsadeen bay wax ka duuduubayaan maxaad garanaysaa inay isfahansaneen bay weerarsan yihiin baba heesta ay qaadayeen ku gaarin markaad kooda waxa weeyaan degdeg ma fiicin ko waxa la ma sha Allah saaxiibadeed uu guursan ninkeeda waxaan iska dhignay dad ka ogbay iyaga noloshoodiiba. macnaha waxaan lahayd waa gabar fiican ma garanayno wixii fiican iyo wixii xun ma kala garanayno wixii fiican iyo wixii xun. ilaahay salaam markaa aad iyo aad baa ugu maastaa shey video waa daawatay hani ilaa YouTube channel ka subscribe saartid video guna like saartid aad iyo aad baa maastaa waa noo video daba ilaahay ilaaba skr